kulanto wacan oo wanaagsan dhawaadayaal markasta naga dhawaanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka SBTV qodobada wararka maanta ugu door koronaya waxa kamid ah hay'adda UNHCR oo digniin u dhigtay dadka qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga dhab waa maxay digniintaas warbixinaya idinka hayna 24 baabuur oo dagaal oo Mareykanku ku deeqay oo la keenay Soomaaliya xasan sheekh oo safar kale oo dibadda u baxay toddobaadka soo socda musharaxiinta doorashada Kenya oo siyaabo yaab leh ku soo jeedinaya codbixiyaasha maxay tahay lacagta cusub ee malaayiinta dollar ah ee loogu deeqay dawladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran u diyaar garoowa waa maalinimo Jimcaha taariikhda ay ku beegantahay 5 bisha August 2022 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran ayna ku bilownay hay'adda UNHCR ee dalka Kenya ayaa waxa ay digniin dhinacyo badan taabanaysa ay u soo jeedisay ama u dirtay dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma digniintan ayaa waxa ay ku aadan tahay doorashooyinka ku soo wajahan dalka maalinimada Talaadada ee soo socda 9 bishan iyadoo bulshada qaxootiga loogu diray inaysan ku dhaxmilmin arrimaha siyaasadda ee dalka sidoo kale waxa loo sheegay in qaybaha kala duwan ee dhalinyarada iyo gabdhaha in ay iska ilaaliyaan goobaha dadka faraha badan aysan ka qayb galin soo baxyada ama shirarka quseeya arrimaha doorashooyinka ama arrimaha siyaasadda arrintan ayaa waxa ay imaanaysaa oo ku aadan doorashada dalka Kenya hay'adda UNHCR ayaa waxa ay shacabka ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya ugu baaqday inay iska ilaaliyaan soo baxyada siyaasadeed iyo waliba shirarka quseeya arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka inaysan ku dhaxmilmin dadka qaxootiga ah ee Kenyaanka ahayn ee ku nool xeryaha Dadaab doorashada dalka Kenya ayaa waxa loo madalsan yahay in ay dhacdo 9 bishan Agoosto xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa waxa ku nool in ka badan 230,000 oo qaxooti diiwaan gashan ayadana ay jiraan qaxooti aan si rasmi ah u diiwaan gashan oo ku nool xeryaha Dadaab haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ayaa ka soo tagay habnololeedkoodii raaxada lahaa intii ay ku jireen ololaha doorashada iyo soo jeestay dhaqidda suuliyada jarjaridda qudaarta iyo karinta shaaha si ay u soo jiitaan codbixiyaasha doorashada la filayo inay qabsoonto 9 bishan mid ka mid ah siyaasiyiinta madadaaliyay dadka Kenyaanka ah ee waa Paul Krap Agade oo xirtay dharka nadaafadda kadibna bilaabay dhaqidda suuliyada ku yaala caasimadda Nairobi in ka yar 20 ilbiriqsi ayuu ku qaatay xaqidda suuliga iyadoo dadkii ka shaqeynayay nadaafadda ay si yaab leh u eegayaan muddo dheerba waxa loo aqoonsanaa shaqo iska eg leh balse waa shaqo mas'uuliyad leh ayuu yiri Agade dadka dhaqa suuliyada ee ku nool magaalada ayaa alaba isticmaala iskoobe duug ah iyo baaldiyaal si ay u dhaqaan suuliyo wasaq ah oo soo uraya ninka ay aadka u loolamayaan Masar Agade waa senatarka Nairobi Johnson Sakaja isagoo qudhiisa kama uusan xishoon shaqooyinkan oo kale waxa la arkayay isagoo wadada hareeraheeda ka iibsanaya kaalin iyo yaanyo iyo basal suuqada intii uu ka iibsan lahaa supermarketyada waxay qaadatay sanadkan doorashada in lagu baraarugo xaqiiqda mid ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda booqasho rasmi ah ku tago dalka Uganda sida ay wareedyo ka tirsan Villa Soomaaliya u xaqiijiyeen warbaahinta inkasta oo weli aan la shaacin maalinta rasmiga ah ee haddana booqashada madaxweynaha ayaa ku beegan kadib marka la ansixiyo golaha wasiirada oo la filayo in xildhibaanada golaha shacabka la horgeeyo maalinta Sabtida ay soo socota booqashada uu Xasan Sheekh ku tagayo Uganda ayaa ah mid rasmi ah wuxuuna casuumaad ka helay dhigiisa dalkaas Yoweri Museveni sida ay wareedyo noo xaqiijiyeen labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal amniga Soomaaliya oo ay joogaan kumanaan ciidan oo ka socda Uganda iyo qodobo kale muhiim ah madaxweynaha ayaa sidoo kale Kampala kula kulmi doona jaaliyadda Soomaaliyeed Uganda ayaa noqon doonta dalkii sideedaad ee uu booqdo madaxweyne Xasan Sheekh tan iyo markii la doortay 15 bishii May kadib Imaaraadka Turkiga Eritrea Kenya Djibouti Tanzania iyo Masar dhammaan dalalkaas ayaa muhiim u ah Soomaaliya waxaana isugu jira kuwo diris la sida Kenya kuwa ay Soomaaliya ciidamada ka joogan iyo kuwa xiriir taariikhi ah oo ganacsi ama diblomaasi ah la leh Soomaaliya waxayna Uganda qayb ka soo galaysaa muhiimadaasi Xasan Sheekh
ayaa halkudhiga dowladdiisa ka dhigtay Soomaaliya heshiis ah dunida heshiis la inkastoo dadka qaar ay ku dhaliilaan inuu xoog saaray dunida oo uu hilmaamay Soomaalida. Dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu ka hadlay golihii wasiirada uu soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Bare. Xamse Aar ayaa waxa uu soo magacaabay golo wasiiro oo ka kooban ilaa 80 kuwaas oo ay isugu jiraan wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa soo dhaweeyay magacaabista golaha wasiirada. Waxa uu sheegay haddii ay yihiin Jubbaland in ay si toos ah ula shaqayn doonaan golaha wasiirada cusub ee soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse. Waana maamulkii ugu horeeyay ee ka hadla golaha wasiirada soo dhaweeya. Warar hoose aan la xaqiijin karin ayaa waxa sheegaya dhinaca kale in madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu diiday golaha wasiirada ee la soo magacaabay. Dhanka kale Soomaaliya waxay yeelatay markii ugu horeysay wasiirka bay'ada iyo isbeddelka cimilada iyadoo wasaaradda dastuurka lagu daray tan cadaaladda tii gargaarka iyo maareynta masiibooyinkana la baabi'iyay. Guud ahaan xulashada golaha wuxuu ku salaysan yahay habka awood qaybsiga 4.5 waxaase xubnaha ka mid ah siyaasiyiin ka tirsanaa xilhayntii hore ee madaxweynaha iyo kuwa ka soo shaqeeyay xukuumadihii dalka soo maray. Taasi waxay ka dhigan tahay in laga dhiga adeegay dalabaadkii dadweynaha ee ahaa xubno ka duwan kuwii xilhayntii hore. Goluhu wuxuu ka tiro badan yahay kii Xasan Cali Khayre oo ahaa 67 xubnood kamana muuqdaan xubno wax ku ool ah marka laga reebo dhowr wasaaradood. Wixii ka dambeeyay dib u doorashadiisa Xasan Sheekh wuxuu inta badan ku maqnaa masraxa siyaasadda gudaha isagoo ku mashquulay diblomaasiyad xiinta ah. Dhanka kale magacaabida Mukhtaar Roow Cali Abu Mansuur wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa muujinaysa in Xasan Sheekh uu madaxa ku hayo inuu horta koobiyo Al-Shabaab dagaalka qoriga iyo caqiidada inta uusan la fariisan. Abu Mansuur oo u qaabilsanaa xoogagga Al-Shabaab gobolada Baay iyo Bokool ayaa isu soo dhibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed August 8 2017 kadib markii uu ka soo baxsaday 2013 hoggaanka qalabsan ee ururka magaciisa wuxuu adduunweynahaba ku faafay markii 2012 uu Mareykanka ku biiriyay liiska argagixisada lana duldhigay $5 milyan. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada ayaa bixisay $9.5 milyan si gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah loo gaarsiiyo bulshada ku nool meelaha macluusha ay ka jirto ee gudaha Soomaaliya. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay qatarta macluusha ee Soomaaliya ayaa sii kordhay kadib xilli roobaadkii afraad oo soo dhacay taas oo sababtay in ay ka baro kacaan deegaanadii ay deganaayeen dadka kuwaasi oo maciin biday deegaano kale. Sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinaha qaramada midoobay in xaaladaha abaareed ee sii kordhaya ay saameeyeen in ka badan 7 milyan oo qof ayna barakiciyeen in ka badan 900,000 oo qof oo kale oo guryahooda ka barakacay iyagoo raadinaya biyo cunto iyo daaq. Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacday abaar aad u daran taas oo saameysay dadka iyo dunyada. Sidoo kale madaxda dowladda ayaa ugu baaqay deeq-bixiyaasha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed in ay gurmad la gaaraan dadka ay abaarta ka laysay xoolihii iyo dalagii ay beeranayeen. Antaas ayna ku saafmeerin markaad kala socoteen telefishinka SB TV. anta warkan war labadan kulmi doona waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo.